بسم الله الرحمن الرحيم. أنا حكبر إنه ويدينتنا what is a SWOT analysis وأنا area لسوق جابيه S وحي أتاجنت strength أما ومحي أود أي شركة دلالة هاي W وحي أتاجنت هاي weaknesses أما مالها أي شركة دكلي ذات ومحي O وحي أتاجنت هاي opportunity أما فرصتها كجرا سوق ومحي T وحي أتاجنت هاي threat أما عقبتها كجرا سوق ومحي haddaba intaanan u gudagelin qeexidda SWOT analysis oo wada socota aan aragno labada eray ee koowaad waana SEW. labadan waa walxo lagu dhiraandhiriyo in lagu ogaado shirkadda naf ahaanteeda ama gudaha shirkadda waa maxay awoodda ay leedahay iyo meesha ay ka jirto awooddaasi iyo sidoo kaleeto waa maxay meelaha ay shirkadda ka liidato. labadan marka ay israacaan waxaa loo yaqaanaa internal analysis ama internal factors. sidoo kale labadan eray midna waa in laga fiiriyo dhanka positive-ka waana strength-ga ama meesha ay shirkadda ku fiican tahay waa maxay sida tusaale ahaan oo kale inay shirkadda haysato maamul fiican ama inay shirkaddii haysato lacag badan. halka qaybta labaadi ay tahay W una taagan weaknesses waa in laga fiiriyo dhanka negative-ka waxaana la adeegsadaa in laga fiiriyo meelaha ama walxaha ay shirkadda ku liidato waa maxay sida qalabka ay shirkadda isticmaasho oo kaleeto oo aanan ku habboonayn marxaladda ay shirkadda marayso. markana aan isla fahanno qaybta labaad oo ah in lagu ogaado fursadaha iyo caqabadaha ka jira suuqa waxaana loo yaqaanaa external analysis ama external factors. oo waxay u taagantaa fursadaha ka jira suuqa waa maxay oo ay shirkadda ka faa'iideysan karto. tusaale ahaan oo kaleeto sida inay shirkadda heli karto dhalinyaro badan oo jaamacado ka baxay lehna aqoon fiican kana qayb qaadan karaan kobaca shirkadda ay hiigsanayso. T waxay u taagan tahay threat waana negative-ka waana aalad lagu ogaado waa maxay walxaha ama caqabadaha u keeni kara shirkadda sida inay tartan xoogan uu ka jiro suuqa ay shirkadda ku howlgasho kaleeto. haddaan intaas isla fahanay aan markan isla aragno qeexidda SWOT analysis oo wada socota waxaana ku qeexi karnaa inay tahay aalad loo isticmaalo marka la rabo in la dhiraandhiriyo istaraatiijiyada ay shirkadda ku shaqayn lahayd. aaladan waxay u suurtagelin kartaa shirkadda inay qiimeyso awooddeeda iyo meelaha ay ka liidato waa maxay sidoo kale inay ogaadaan fursadaha ka jira suuqa waa maxay iyo welibana caqabadaha ku iman kara shirkadda. waxaa intaa dheer marka la ogaado xogtaas waa in la qiimeeyo siday u saameyn karaan waxqabadka shirkadda ma si tabanba mase waa si togan. si aan u fahanno qeexidan aan isla aragno tusaalahan waxaan ku salaynaynaa shirkad ka ganacsata daawada. markii aan soo ururinay xogta qusaysa shirkaddan daawada waxaan ku hormaraynaa kooda hor inaan wax ka ogaano strength-ga ama awoodda ay shirkadda leedahay. awoodda koowaad ee shirkadda ay leedahay waa inay ku xoogan tahay cilmi baarista iyo horumarinta ama waxay leedahay wax xoogan oo R&D ah. hadda kahor ayaana kasoo hadalnay waa research and development xogteedan waxaad ka heli kartaa lifaaq hoose. awoodda labaad waa inay leedahay macaamiil fiican waxaana u keenay in lagu kalsoonaan karo wax soo saarkeeda iyo tayada daawadeeda. markana aan aragno meesha ay ka liidato shirkadda. kow waa awoodda wax soo saarka shirkadda oo aad iyo aad u kooban oo ma buuxin karto baahidii ka jirta suuqa. meesha kale oo ay ka liidato shirkadda waa inay ka hesho raw materialka ama walxaha ay u adeegsato daawo soo saaridda shirkado kooban. markana aan aragno fursadaha ka jira bannaanka. kow in fursado fiican ay ka jiraan wadamada soo koraya welibana tartanka uu aad iyo aad ugu yaryahay suuqyadaas oo haddii shirkaddan ay rabto inay ka furato xafiis wadamadaas ama inay u dhoofiso daawooyinka way heli kartaa. labo inay wada shaqayn fiican la leeyihiin jaamacadaha oo kaleeto oo waxay heli karaan aqoon-yahano iyo cilmi baaristii u dambeysay ama way wada shaqayn karaan si ay usoo sameeyaan research cusub. markana aan isla aragno tusaalaha la xiriira caqabadaha ay shirkadda daawada soo saarto kala kulmaysa suuqa. kow tartan xoogan oo ka jira suuqa ay hadda ku howlgasho shirkaddan. labo waxaa dhici karta in ay waayaan ama ay si adag ku helaan walxaha loo adeegsado wax soo saarka daawada waxaana keeni kara midaas in waddanka lagu soo saaro daawada iyo waddanka ay ka helaan raw materialka oo isku dhaco kaleeto ama inay ka dhacdo masiibo dabiiciya. gunaanad shirkadda soo saarta daawada marka ay samayso SWOT analysis waxa ay ogaan kartaa
walxaha ka jira suuqa iyo sida ay u saameyn karto. Haddaba waxay u howlgari karaan sidii ay waxa fiican uga faa'iideysan lahaayeen, culayskana ay ula macaamili lahaayeen ama ay uga hortagi lahaayeen. Xogtii SWOT analysis oo kooban waa middan hortiina ka muuqata, weliban waxaad arki kartaan sida ay isku raacraacayaan maxaa positive islah iyo maxaa negative islah. Micnaha competitive advantage, research and development, iyo strategic management horay ayaan uga soo hadalnay ee fadlan ka dhegeyso lifaaq hoose. Mahadsanidin, waa inoo markale haddii Rabbi idmo.